السلام عليكم. مقعي ومحمد شامعان. فرسمada gacantu waa shay aad u muhiim ah oo aynu u baahannahay nolosheena dhinac kastaba haddii ay noqoto in aynu ku horumarino nafteena iyo sidoo kale haddii aynu ku shaqeynaynaba. farsamada gacantu waxa ay u kala baxdaa noocyo kala duwan. haddaba sidee ayaad ku noqon kartaa qof farsamo yaqaan ah oo yaqaana xirfado kala duwan? farsamo yaqaannimadu ma aha in aad taqaano hal xirfad oo ku koobnaato. farsamo yaqaannimadu waxa ay u baahan tahay in aad si fiican u fakirto oo aad taqaano xirfado kala duwan. haddaba sidee ayaad ku noqon kartaa farsamo yaqaan? waxa aynu baran doonaa koorso ku saabsan habkii aad u noqon lahayd farsamo yaqaan buuxa oo ka shaqayn kara farsamooyinka kala duwan nooc kastaba ha ahaatee. haddii aad tahay qof wax bartay, waxaa keliya kaa maqan in aad gacantaada wax ku samayn karto. haddaba sidee ayaynu gacanteena wax ugu samayn karnaa? hadda sidaad wada aragteenba dalkeenna ama dhulka Soomaalida dhammaantood waxa ka shaqeeya ajnabi iyaga oo u soo shaqo taga oo dalal fogfog looga keeno waxyaalo yar yar oo aad u simple ah oo aad ku baran kartaan saacad ama 2 saacadood gudahood. dhammaan waxyaabahaasi waxa aynu ku baran doonaa koorsadan si aynu isugu filnaano oo dhinac kasta aynu baahiyaheena u dabooli karno. waxaad u baahan tahay inaad farsamooyinkan ama farsamada gacanta aad barato. tusaale ahaan oo kale gurigaaga waxa ka bannaan boosas badan oo shaqo oo aad ugu yeedho dad bannaanka jooga. ugu yaraan haddii aad gurigaaga dhammaan baahiyaha ku saabsan farsamada aad daboosho, waxa kuu seefgaroobaya lacag aad u tiro badan oo bil walba kaa bixi lahayd iyo sanad walba. sidoo kalena haddii ay shaqo la'aani kugu dhacdo ama shaqadaadii aad markii hore ka shaqaynaysay uu problem ka yimaado ama aad weydo, waxaad awood u yeelan kartaa in aad bilaaban karto xirfad ganacsi amaba aad ku shaqo tegi karto farsamadan gacanta. koorsadeenan aynu ku baranayno farsamada gacanta waxa aynu u kala qaadnay oo aan u kala qaybinay cutubyo kala duwan oo ka kooban 8 cutub. 8da cutub, cutubka koowaad waxa aynu ku baran doonaa tooliska ama qalabka. qalabku waa shayga ugu muhiimsan ee hadda waqtigan casriga ah la adeegsado, kuwaas oo ka qayb qaata qaabkii loo samayn lahaa wax soo saar ama wax loo xalin lahaa ciladoobay. waxaa lambar 1 ka ah tooliska. marka waxaynu ku baran doonaa qalabyowga aynu adeegsan lahayn, qalabyadu say u shaqeeyaan, qaabka loo adeegsado, qaabka aynu isticmaalayno, waxyaalahaas oo dhan baynu ku baran doonaa. sidoo kale waxaanu ku baran doonaa qaabka aad uga badbaadi karto halisaha qalabyada iyo shuruudaha ku xidhan inaad qalabyowgan farsamada gacanta aad adeegsato. qodobka labaad waxa uu noqon doonaa measurements oo waa aqoontay hoos imaanaysa iyaduna oo cabiradu waa waxa iyaduna ugu muhiimsan ee ay ka dhaqaaqdo farsamada gacanta. waayo haddaadan cabir garanayn waxaad samaysay qiimo ma yeelanayo, wax macno leh oo ma garanaysaa wax noqon kara ma noqonayo haddaadan cabirada aqoon. marka waxaynu baran doonaa dhammaan cabirada loo baahan yahay iyo qaabka loo cabirto wax si aynu u samayn karno wax soo saar. qodobka saddexaad ee aynu ku qaadan doono ama cutubka saddexaad ee aynu baran doonaa ayaa waxa noqon doonaa electricity-ga. tusaale ahaan oo kale electricity haddaad garanayn farsamadaada waxbaa ka maqan. electricity kulli wada aragtay guri ayaa imika tusaale ahaan oo kale laambadi ka xumaanaysaa, waa in aad laambadii adigu xili kartaa, waa inaan qof loogu yeedhin. tusaale ahaan oo kale farsamadaadii gacanta waxa soo hoos iman karta ama waxaad samaynaysaa tusaale ahaan oo kale waxbaad samaynaysaa, farsamadii waxay u baahanaysaa inaad electricity-gii wax ka taqaano. waayo meelo badan bay kaa hor imanaysaa inaad electricity-ga wax ka taqaano, sida xadhkaha la isugu xidho, sida shoorka looga saaro, waxyaalo badan oo electricity ugu saabsan oo aad u muhiima ayaan koorsadan sidoo kale ku qaadan doonaa si aad u noqoto farsamo yaqaan buuxa. cutubka afraad ee aynu koorsadan ku baran doono ayaa waxa uu noqon doonaa furniture-ka. furniture-ku waa shay kasta oo ma garanaysaa loox ka samaysan ama itemyo kala duwan sida muraayado, waxyaalaha wuxuu doono ka samaysnaan karna. laakiin furniture-kan ku baran doonaa hadday noqoto sida loo sameeyo sariiraha, hadday noqoto sida loo sameeyo kuraasta, miisaanta, wax kasta oo furniture oo looga baahan yahay guryaheena ama xafiisyada la dhigto ama meel kale loo isticmaalo, ama ha noqoto goob shaqo, goob cunto, any furniture badan ayaynu ku baran doonaa qaybta koorsadan ka mid ah iyadana, oo qaabkii loo samayn lahaa kuraas, miisaan, waxyaalo badan oo baahiyaheena ah sidii aynu samayn lahayn ayaynu tusaalayaal badan ku bixin doonaa oo aynu si toos u samayn doonaa. oo wax kastoo shay walba markaad samaynayso qaabkaad u cabiranayso iyo sidaad u samaynayso ayaan kugu tusi doonaa koorsada. qodobka shanaad waxa uu noqon doonaa ama cutubka shanaadi qaabkii aynu welding-ka u baran lahayn. welding waa laxaamada. tusaale ahaan oo kale laxaamad
marka lagu leeyahay waa laba shay oo la isku dhijinayo tusaale ahaan oo kale laxaamada waxa la laxaamadaa shay kasta oo bir ka samaysan sidoo kale birtu waxay u kala baxdaa noocyo kala duwan laxaamaduhuna waxay u kala baxaan noocyo kala duwan dhammaan noocyadaas aynu baran doonaa sidoo kale waxaynu baran doonaa oo aynu qaybta shanaad ku baran doonaa in laxaamada ama weldinka qaabkaynu u samayn lahayn shayyo la isku alxamay oo ka kooban furniture ama kuraas ama miisaan ama waxyaalo kala tools oo wax loo adeegsan karo qaabkaynu u samayn lahayn ayaynu qaybta weldinga ku baranayna sidoo kale machinery-ga ama waxyaalaha mashiinada iyo waxyaalaha soo dhan ee la samaynayo qaybta waxay hoos imaanayaan weldinka oo qalab socdaynu samayn karnaa haddaynu weldinka wax badan ka naqaano oo tusaale aynu ku qaadan karnaa marka iyadana tusaalayaal badan iyo casharo badan ayay ka koobnaan doontaa oo aan idinku bari doonno weldinka iyo qaabka loogu shaqeeyo cutubka lixaad ee koorsadan aynu ku qaadan doonaa waxa uu noqon doonaa gypsum board waxa weeyaan waa qurxinta guryaha hadday noqoto gidaaradooda loo isticmaalaa iyo sidoo kale dusha sare ama korka sare ee guriga ayaa loo isticmaalaa qaabkii loo qurxin lahaa ama leegar loogu samayn lahaa gypsum boardka waxaa loo keensadaa waddankeena dad ajnabi ah oo lacag inagala baxaya oo waddankii musalaf ka dhigaya oo lacagtii waddanka taaloo dhan dibadda u qaadeen marka gypsum boardkaasi aad ayaa loogu baahan yahay oo dadkeenu way baran karaan waqti yaroo kooban baanay ku baran karaan laakiinse cid barta ayaanay weli helin gypsum boardkaasina waa inoo muhiim qodobka lixaad ama cutubka lixaad waxaynu si ballaaran ugu baran doonaa oo aynu tusaalayaal ku bixin doonaa oo aynu si live oo samayn doonaa gypsum boardka iyadoo af Soomaali wax walba aynu ku sheegayno aynu Soomaali wax ugu sharaxayno cutubka toddobaad waxaynu ku qaadan doonaa claddingka waxa loo yaqaano tusaale ahaan oo kale fooqyada imika waxa loo isticmaalaa wax cladding la yiraahdo oo dad loogu yeero ajnabiga oo dadka Soomaalidu aanay aqoon u lahayn marka claddingkaas sida loo laalaabo wax kale maaha claddingka lagu sheegaya waxa uu ka kooban yahay laba qodob waa biro la isku laxaamaday sidoo kale claddingka sida loo laabo iyo iyadana baranaysa sida biraha claddingka ama shaxda claddingka ugu fadhiisanayo sida loo laxaamadayo ee la isugu xidhayo iyo sida claddingka ama loo laabayo bahalahan claddingka ayaa iyadana ku baran doontaa oo gibigeeduba iyadana koorsadan qaybta toddobaad ayaynu ku soo koobi doonaa iyadana cutubka sideedaad ee koorsadan iyadana waxaynu ku qaadan doonaa paintingku wax ciyaar maaha isaguna waa loo baahan yahay haddii aad rabto inaad farsamo yaqaan noqoto waa qayb ka mid ah farsamada paintingka ama rinjiyeyntu waa qaybta iyaduna muhiima oo waxay ka qayb qaadataa qaab dhismeedka ama quruxda shayga aad samaysay ayay ka qayb qaadataa marka paintingka haddii ay noqoto sida biraha loo rinjiyeeyo sida loo rinjiyeeyo gidaarada sida loo macjuumo waxyaalahaas oo dhan baad ku baranaysaa paintingku markaa iyaduna waa shay aad u muhiim ah oo hoos imaan doonta qaybta farsamada gacanta marka koorsadan 8 qaybood ee aan idiin faahfaahiyey ayay ka koobnaan doontaa marka dhammaan koorsadan baynu ku baran doonaa qof kasta oo koorsadan barta waxaan hubaa inuu noqon doono farsamo yaqaan buuxa oo ku shaqeeya baahiyihiisa gaarka ahna ku fushada farsamada gacanta koorsadan waxaa dhigan kara qof kasta oo soo maray dugsi dhexe ama dugsi sare ayaa dhigan kara oo waxna qori kara waxna akhri kara waqtiga ay bilaabmayso koorsadana waxa ay ka bilaabmi doontaa casharkeeda koowaad bishan ina soo aadan kowdeeda ayay casharadu bilaabmi doonaan marka inta bisha ka horeysana diiwaangelinta ayaa la sii qabanayaa bisha kowdeedana waxa bilaabmaya casharada oo fiigaad soo bixin doontaa inta ka horeysana lacagta diiwaangelinta laga sii qabanayaa wada la sii diiwaangelinayaa dhammaan ardayda marka haddii aad koorsadan ka hesho fadlan like saar muuqaalkaygan lana wadaag dhammaan asxaabtaada aad is leedahay koorsadan way anfacaysaa waxna way u qabanaysaa si aad uga mid noqoto kumanaanka qof ee ku xidhan boggeygan Facebook ku leenahay fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada sidoo kale subscribe garee boggeyga aan YouTube ku leenahay ay caalam.com mahadsanid